السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاتي أنا وعشتان وصبير هاتي هرجتو خماس تالي جوجا وحسوا قاضونا كرمدي لعياري مانتا وغوري فولهام يوم مجلس 6 مجلس أكو أكثر اللبي حلقة مجلس يونايتد هالي بريكو أتكات كنا كودا بين وحوها ليفربول يكتت الهام وحي كسو عضلات ليفربول أي عفري سدح كسو عضلاتي حلقة نابولي لو ديدين يودا بالدكتو خوريا كده سيريا مادام أي كل كان يبرج كشي هالكا لاسيا أفك عيد لو طريق أنت ميلان يكو أتكات سدح حال كودهان kulanku uu horeeyay soo qaadanayna waa kulanka Man City waxaana ku adkaatay 2-1 ciyaartaasi oo ahayd lagu horeeyay Man City kadibna barajay kan maarfaas goolkii labaad guusha siiyay Manchester ayaa ku adkaatay 2-1 taasna waxay ka dhigan tahay inay la wareegtay tabelka Premier League iyadoo ku hayso kooxda hal dhibic maadaama uu kulana baaq u yahay De Bruyne ayaa ciyaartaasi gabi ahaan seegay maadaama ay kulama oo muhiim ah ku soo aadayeen Guardiola ayaa doorbidina ciyaartoygiisa qaarkiis nasiyo laakiin waxay ku adkaatay guud ahaan 2-1 halka Manchester United hal ever ka adkaatay waxaana kaga filnaatay goolkii uu caawiyay Rashford oo waxaan dhaliyay Bruno Fernandes taasi oo ka adkaatay Aston Villa haddii ay badaleed hami kala haleen Champions League sanadka dambe baaxsanays laakiin waa ay suurtagal waayso waxa ka adkaaday kooxda Manchester United oo booskeeda si xigsanayso u moodinaysan نسقامين maadaama ay kulan muhiim ah gacan dibadda ka gaareen halka Newcastle United iyadana gool lagu hormaray laakiin waxa ay ugu bedeshay 3-1 ay ku soo laatay Newcastle United ayaa u muuqata inay Champions League sanad dambe soo aadayso riyada Liverpool ay ka ahayd inay top 4 ka soo gasho waxa ay si laciifaysaa haddii ay sidan ku sii socoto Newcastle United ay sii badiyaan waxay noqon doontaa in Liverpool Europa League sanad dambe ka ciyaari doonto taasna ay suurtagal ahayn in Champions League soo aado laakiin waa halkaan kubadda cagta wax walba ka filo oo waxa uu dhiman kulamo 5 kulan gaaray haddii ay badiyaan kulamadaasi waa macquul inay Champions League difacdaan halka Liverpool iyo Tottenham ay ahayd ciyaar xamaasad waxaan Liverpool hormatay 3 ciyaar markay maraysa 15 daqiiqo laakiin waxa dhacday in goolkii waqti kambi dhamaadkeedii gool Harry Kane dhaliyo laakiin Liverpool waxay kaga filnaatay inay kambi ku maraan 3-1 markii kambi isku soo maray waxa noqotay in Son goolkii labaad uu dhaliyo halka goolkii saddexaad uu Richarlison uu saddexaad dhaliyo xilli dambe ahay 90kii dhowr mareysay ugu dambeyn waxaas goolka soo afjaray Jota oo waqtigii 94aad ka dhaliyay gooltaasna wax kaga filnaatay kooxda Liverpool inay 4-3 kaga adkaato dhigay Tottenham ciyaar qurux badan aan oo kalkicin runtii waxay helayaan xamaasad leh waxaana dhihi karnaa ciyaar aad u qurux badan ay labada dhinac soo bandhigeen jaanisadu waxa badnaa kooxda Tottenham oo la dhihi karay in ay 4 waxba ku badi kartay haddii jaanisadu ay qasaartaan ama birtu ku dhacay dhalin lahayd guud ahaan Liverpool ayaa hadda 5 kulan oo xiriir ah badinaysa waa haddii ay sidaan formkooda ku socoto waa macquul in top 4 ay maadaan laakiin waxa ka horeyso waa in loo isgareeyaan Newcastle United iyo Manchester United kulamo kamid ah Premier League haddii taas dhici weysana waxa ku adkaa doonta kooxda Liverpool inay soo aado Champions League waxay ka ciyaari doontaa Europa League halka Lazio 3-1 loo adkaaday Inter Milan waqti gool ay la hormartay Lazio laakiin waxa diiday Inter Milan oo ka tiraaday goolashiina kuwa anaga qaata waxaan ku adkaa 3-1 halka ay laftamas Inter Milan wacdahay in booska Champions League sanadka dambe lagu soo baxayo haday kaga jirto horyaalka waa macquul haddii kulan kala saan u lumiso inay soo degi doonto Napoli waxa maanta loo diiday inay dabaaldegto gurigeeda maadaama ay hal isla dhaaf waayeen Sampdoria taasi oo keentay Napolianka ay dabaaldegi waayeen horyaalkoodii ee sanadkan soo gaaminayaan riyadooda ahayd horyaalka ku guuleystaan iyadoo 5 kulan dhiman tahay horyaalka laakiin waxa diiday Sampdoria oo ka dhigtay ciyaartaasi hal taasni ku tiraaday ma ahan halka maanta ku dabaaldegi lahaydeen guud ahaan waxay dhaheen Napoli oo ka xun ayaa garoonka iskaga baxday iyadoo doonaysa maanta inaysan waqti u kaga dhumin kulankan gurigooda lagu ciyaarayo gabi ahaan bay kaga soo badiyaan si toosana horyaalka ugu dabaaldegaan guud ahaan waxay ahaayeen ciyaaraad qurux badan haddii aad ka hesho muuqaalkan dhageystiya asxaabtaada oo ku maasantahay la joogaaga